بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى دتك كنت تحنيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحن شيء بإذن الله تعالى إن أنا بين دم بلابد تاريخ الخلفاء الراشدين أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي حل جودي صدقي سنة أي مامل كهيين سكو كوبن أو كسب حالة ذي دعي دبعت بدن المسلمين تدخل كدعي يقول بدن ولا جاري هي مفاهيم بدن أو حاجة عقيدة أو واحد بدن لقى صحيح ليه أيان إن شاء الله تعالى أيضا سوق بين دونا سكو كوبن بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى تانا هبين دمان بلا بدونا ما دام أن سيردي أن مدوك سو جرنين سودني أن سلان سو جرسنا قبل غير النبي عليه الصلاة والسلام يدور شدي أبو بكر الصديق مركب وحنا تجدونا خطبة أبو بكر يتلابين كي وقاضي وجوه الرئي ما دام جزيرة العرب أي ردودين دتكي ودر ردودين بدن كوضيبة أفر ميلا ضميل أي قصة هرتالي إلى إسلامك دتكي مسلمين تاها جزيرة العرب دقنا أفر مركز الله غيبي صدح واردوبين ردودنا ويكلا دوانايين قال الردود وحي هيد إن متنبئين شاكتين ويراهدين أننا النبي بأننا صباحي صدح قبيل بانا وقع عن سنة قبيلك وكذا شيء مسلمة الكذاب بنو حنيفة قبيلك وكذا شيء أسود العنسي ورير يمن على بني عنسة يا قبيلك وكذا شيء طليحة الأسدية بني أسدها oo nin walba meeshiisii ciidan ay ku diyaarsaday waxyina sheegtay samaawi inuu ku soo degayo malaa'igu timaado inta waxa dheerayd ayaduna haweenay nabi sheegatay oo saaxirada haween faalalay kuwaan la yiraahdo uraafiinta ah oo u dhalatay qabaalka la yiraahdo Tamiim laakiin sarre abtigeed bay la joogtay oo bani Taghlib loo oran jiray bani Taghlib baa garab istaagay awood bay yeelatay iyadina meesha ku dambeysaan arki doonaa ayaduna nabi sheegatay sajaaxa la oran jiray waxaa soo dhan ba marka soo baxo qaybta ridadii kamid ah qayb waxay yiraahdeen salaad ma tukanayno laakiin ilaahay uma shariig yeelino masaajida iyo salaad iyo cibaado waa iska dhaafeen sanamna ma caabudayna dhaheen laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah afkan ka qirayna laakiin cibaado salaad iyo soon iyo zakay iyo kulli waa iska dayna waa nooc kale oo ridda ah qolo saddexaad waxay yiraahdeen anagu waa tukanaynaa wax walba diintii waa ogolnahay ilaahayna uma shariig yeelina laakiin zakada ma bixinayno maalkeena ma ku bixinayno rukni min arkaan islaam bay ka tuureen marka maashi ila zakada waa rukni arkaanta islaam kamid ah saddexda qolo waa saddexda islaam bay sheegtaan marka kii nabinimada sheeganayay nabi maxamed waa qirsan yahay risaalada ilaahay kan afka ka sheegay nabi beenana waa sheegteen waa kufaar kuwa kale murtadiin salaadii iyo cibaadadii dhan diiday oo nabigana qiraya risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam oo ay aad aan u badnayn iyo kuwo fara badan oo maanicu zakaa loo yaqaanay iyagu waxay yiraahdeen zaka ma bixina maalkoodii baan la bakhayleen weliba nabigu wuxuu dhintay calayhi salaatu wasalaam xilli zakada la soo aroorinayay oo meel walba dad uu u diray zaka ka soo markay maqleen nabiga geeridiisa nin walba xoolihiisii uu la haray ilaa shakhsiyaad mooye u tagi doono oo iyagu maaragtay ogolaaday in zakada ay bixiyaan oo islaamnimada ku sugnaa qolo afraad baa jirtay ayaguna oo ayagu asnaamtii u laabteen kuwaas oo kuwii markii nabigu dhimanayay maalmahaas calayhi salaatu wasalaam islaamay iyaguna walba sanamkiisii buu qortay oo samaystay oo shirkigoodii iyo dhaqankoodii iyo caada dhaqameedkii iyo baadidoodii hore ku laabteen iyaguna wathaniyiin murtadiina waa afarta qolo oo kufaarta ayaa soo baxay abubakarna iyo muslimiintii kale waxaa u soo baxday xaalad adag fidna weyn bay ahayd geeridii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku timid imtixaan weyn baa dhacay ilaahay ninkii uu sugay baa sugnaanaya dad badan oo diin u nasab sheeganaya baa qarka ka dhacay saxaabadii muhaajiriin iyo ansaar waxaa u soo baxday shaqo adag inay hortaagan tahay marka waa u tegi doonaa howlihii la qabtay labadii sano abubakar uu hayey sanadkii koowaad jaziira alcarab maya labada sanaba wax yar mooye dhowr bilood mooye carabtii murtadiinta ahayd buu waqtigiisii ku baxay iyo ciidamo muslimiin oo meel walba u kala diray koonfur iyo waqooyi jaziira alcarab ayaan u tegi doonaa bal markii ugu horreysay murtadiintu waxayba hamiyeen inay madiine qabsadaan waana insha allahu tacaala iyo sidii looga difaacay baan u tegi doonaa geeridii nabiga kadib calayhi salaatu wasalaam iyo sugnaantii abubakar sidiiq oo sawaab ku sugnaaday saxaabadii nabiga oo dhan
وكجر هلاي وحيابها قار ومتجي دونا الموقفيو ويستاجي وكسرنا هذا عليه رضي الله عنه مركا halka inoo joogo waana habeen dambe bilaabi doona taariikh khulafaa ar-raashidiin ilaahay waxaan ka baryayaa wixii sawaaba ee faa'iido aan ka faa'iidno inaan ku amal falno wax badan waxa ku jira yaana idinka kala dhaafine xilligaas macnaha geeru ay timid ridadu dad shacairta islaamka muujinaya saddexdan qolo oo shahaadanaysa kuwa asnaamta u laabtay mooyee saddexdan waa tukanaya qaar laba waa tukanaya waana shahaadanaya qaarna nabinimo sheegteen shacairtii waxba kuma kala duwanidin haddii ma la muuqdo oo la tukanaya waa la shahaadanaya maxaa lagu kala garan jiray maxaa lagu kala saari jiray xilligaas dadka ilaa xilligii nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam baadiyaha ciidamada maray haddii la arko dad halkaa ku tukanaya muslimiin baa loo yaqaanay ee salaadan aan naqaano kala tukanaya laakiin nabigu markuu dhintay in la weydiiyey noqoto qofkii markii loo tago la yidhaha maxaa haysataa asagoo tukanaya waana u tegi doonaa ciidan la qabtay oo la yidhi maxaa rumaysantihiin waa niman hadda salaad tukada imaamkooda hor socdo markaas sheegay waxay rumaysan waxba la ogaadana musaylama nabi u yaqaanaan haddeena salaad soo tukadeen marka yani shacaa'irtu marka ay miisaan leedahay waa marka ay muslimiinta gaarka ku tahay laakiin shacaa'ir mushtarak oo la wadaago mushrik iyo muslim ay wadaagaan ama murtad iyo muslim ay wadaagaan miisaan ma leh waa in la iska hubiyo cidda walaalka iyo cidda cadowga ah waxaan filayaa rag badan ilaahay idankii iyo dumar fara badan oo maanta masalada at-tawaquf wa tabayun ama iska xaqiijinta nagu inkira inay wax badan fahmi doonaan biidni illaahi tacaala oo ayagu diinta jecel laakiinse laga yaabo u qaatay inay bidco tahay arrintaas markaan abubakar iyo saxaabadii soo bandhigno sida ula dhaqmeen dadkaas waxay ogaanayaan in manhajkii salaf saalix ay ka mid tahay in la iska hubiyo acdaada islaamka marka la isku khaldamo shacaa'irtuna maanta sidii oo kale suufigii iyo shiicadii iyo calmaanigii intaba shacaa'irta waa la muujiyaa marka shacaa'irta waxaan ka wada waa la tukanaya waa la shahaadanaya zaka baalkii labiska isku mid baa laga yahay waana la adimaya waana shacaa'ir islaam miisaan ma yeelanaysaan marka haddii mushrikii uu sameynayo muslimkiina uu sameynayo weliba mushrikiinta fara badan maanta haddii caalam alislaam dib loo fiiriyo ahlu shirkiga ka badan ahlu tawxiidka ka beri noqda mushrikiinta iyo taaquudka kufriga aad bay u yaryihiin marka meeshii nabigu sheegay baa la marayaa bada alislaamu gariiban wasayacuudu gariiban kamaa badaa fatuuba lilghurabaa in sha allahu tacaala waa inoo habeen dambe aanu bilaabi doono taariikh alkhulafaa alraashidiin وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم